ماما ايوه wiilkaaga adigu aan gaarba maxaa lagu sameynaa إلا حرية لا يصير عند أسرع بداوعه وجعله waa jecesha ها wada wiilkaaga hadda xaaladiisana la soco إن شاء الله daaweysane وما سنت إن شاء الله saldhigga oo idin dhow ayaan xaaladiina idin ka warhaynaya wiilkaaga si fiican ugu warhay odagana u sheeg wiilkaaga mas'uuliyadda ka saaran dheh وما سنت إن شاء الله dad wax inay dhacaan rabaana mootada ku wadi محمد قدامي ay أنا سردر الله وذا xabad ma kugu jirtaa hadda آه intee kaaga jirtaa سنت خاص كيف رسالة markii oo falkan dhacay xabadda kugu dhacday kadib ma dhaqan celin loo geeyey آه maxaa rabtaa maxaa codsanay maxkamadda ka codsanaysaa maxkamadda waxaa ka codsanaya inay xurudiyada siisiisa oo caafimaadka iyo iskuulka barashadana oo ku sii dadaan hooyadiisa aawo maama kaale maama wiilkaaga meeqoo jiraa maama أفري تونسنا haye أرضي وها intaa ku ogeyd waxaan ku ogaay inuu muxuu ahay mooto waday galbihi haye gelinka dambana oo arday sideedaad oo wax bartay mootada in badan ma wadin oo wax yar aday amarkaana goorba ku dhici rabay wax yar wada in badan xataa ma wada aw abiis aw ma fadhiya aabiis xamaali waa ma joogo hadda maqaya xamaali oo ka baaqa karin oo ku shaqeeya aabiis iskuulkiya ka bixiyey iskuulka lagama bixin yaa ka dhiibo iskuulka figiis lacagta waxaa ka bixiya marna qaraabo wax oo adeera ka baxsho marna anaga iska bixin marka maadaama ay saas ahayd hadda asaga waday laba bilood asaa iska bixinaya asaa iska bixinaya miya haa meeqa jirna waay 14 jir waa qoyska mooda joogan aabbahay aad mooda joogtiin haa wada joognaa marka mootada ku shaqaystaaba gelinka dambe ku shaqaystaa miya calashaan mootada hadda markuu ku dhaawacmaayo agteeda wadayba toos uma wadi jirin awal marka saas uu dhaawacmay shaqo hadda toos oo ababiil ka bixiyo amba laga warsugaay meehana waxay ahayd wax wada ku meel gaar oo maalmo u wadaay dhaqan celina la geeyay wiilka calashaan hadda markuu dhaawacmay maaho markuu dhaawacmay isbitaal la dhigay isbitaalka markii la dhigo xoogaa soo roonaaday aan dhahnay intii looga helaayo kama qali karnay dhaheen anaga qolada hadda oo isbitaalkan cunugana waa yar yahay dhaheen xabadana meel oo dhow kuma jirto u raadsada maxaa wax idin qaada amba dibad amba sida aad u heli doontiin marka isbitaalkii waa awoodi weyn oo waa ka soo bixina mar walba ilaa sariirtana waa lacag wax walba lacag laga rabaa maahno waa isaga soo bixina gurigood daawna uu qaadahaye waxaan geynay maxaa meel oo dhaqan celina daawadiisa lagu siihay oo saasa marka dawladda noogu timiday waa laga soo qabsaday dhaqan celinta marka maxay u geyseen calaashan si uga bixin oo meeshaas oo daawadiisa noogu qaato isagana ugu nasto maxaa ahay daawado lagu siiyo intee degantiin degmade kaarana deganana maama wiilkaaga dad oo inuu wax dhacayn loo haysto mooto ku wadaal leh waa maqlaysa ma hodooda haa hadda maqlay adigu aan gaarba maxaa lagu sameynaa ilaa xuriyad la yisiyo aan asagaaba dhaawacahe waa jecelahay waa jecesha haa oo aan xakamaysto haddaba markuu dhaawacmo ilaa hadda waa ku dadaalaya maama wada wiilkaaga hadda xaaladiisana la soco إن شاء الله daaweysane وما سنت إن شاء الله saldhigga oo idin dhow ayaan xaaladiina idin ka warhaynaya wiilkaaga si fiican ugu warhay odagana u sheeg wiilkaaga mas'uuliyadda ka saaran dheh وما سنت إن شاء الله